أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء waxaan ogaanay in dad badan ay aaminsan yihiin in cudurrada qaarkood aan laga buskoon taa liajligeed waxaan ugu kaliftay annagoon jeclayn inaan soo bandhigno dadkii bini'aadanka ahaa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala u caafiyey haddana dantaan ugu khasabtay si ay u ogaadaan kuwa aaminsan in cudurrada sida dhiigkarka sonkorta kansarka cudurrada aan laga buskoon ee ay sheegaan dhakhaatiirtu dadkii ka buskooday ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka caafiyey baan soo bandhigaynaa wiil kale ayaa waxa uu leeyahay waxaan joogaa dalka muxuu ahaa Canada waxaan haystaa cunug yar oo xanuunsan oo kansar dhiig ah oo ku dhacay wiilkan wuxuu yiri isbitaalo badan ayaan geeyay hadda taan isbitaal ayaa muxuu ahaa yishigu ku jira aan ku hayaa wiilkaas yarka ah daawooyin badan ayaa la siiyay markaas waxa la sheegay dhiigiisa in la safeynayo wiilkii waa aad buu xanuunsan xaaladiisa meel xun ayay maraysaa anigina waan ku daalay ayuu yiri muddo badan ayaan isbitaalka ku hayaa marka doctor sidee muxuu ahaa ula tacaalaynaa ma jiraan daawooyin adigu aan leedahay oo laga heli karo dalka Canada oo meesha aan ku daaweey karno miyaad nagu la talin lahayd inaan inta ku keenno oo inta nagu daweysid marka waxaan jeclaan lahayn ayuu yiri adigoo mahadsan inaad jawaabta saxda ah noo soo dhibtid bismillah horta qaabka u daaweey kartid waxa kansarku uu noocyo badan yahay kansarka xaqiiqatan waa cudur maanta caalamka oo ku badan dadka ku dhaca dhiigu gala kansarka marka magacyada loo bixiyo waxa way ka surka gala markuu surka galo waxa la leeyahay waa kansarkii surka ka gacanta gala markuu gacanta galo waa kansarkii gacanta saas ay u fasiraan ka caloosha gala waa kansarkii caloosha ka kaliyaha gala waa kii kaliyaha kansarku marka waa wax dheeriya waa germs dheeriya oo ku abuurmaya jirka qofka germskaas markuu abuurmo lama ogaanayo oo dhakhtar hadaad u tagtid adoofiyo ma oran kartid kansar iga baad germski uu kobcaya markuu arko inaan difaac una lahayn oo wax difaaca jirka ayna ku jirin wuxuu isku dayaa inuu kobco meeshii uu ku kobcaya markuu meeshii ku kobco ee uu arko inuu kobcay waa wuxuu bilaabayaa inuu weerar hadana qaado weerarkii markuu qaado wuxuu ku fidayaa hadaan laga gaanin jirkii oo dhan waad arkeen qofka hilib dheeriya ka soo baxaya waa isagoo yoo fidaya oo isbalaadhinaya kansarka marka dhiigu ku dhaca xubnaha kalena uu ku dhaca waxaan marka anagu dawadan u hayno waxay tahay kow dawadu waxay joojinaysaa socodkii kansarka marka ugu horeysa waxay la dagaalamaysaa inay stop garayso oo ay joojiso xanuunkii socday bay horta ay xidhaysaa oo joojinaysaa meeshiisa markay ku istaajiso haddana waxay la dagaalamaysaa wixii ay istaajisay ee germska ahaa inay baabi'iso markay baabi'iso waxay soo dhisaysaa cellskii qofka ka maqnaa ilaa cudurkii markuu qofkii ku dhacay cells baa dhamaanaya wixii difaaciyay baa meesha ka baxaya difaaci meesha ka baxay bay dib u soo celinaysaa haduu dhiig noqdo marka waa la daweyn karaa xaqiiqatan gaarisa bay ka dhacday arintaas qof yar Mareykan laga keenay baan gaarisa u tagnay anagoo dhakhaatiir ah oo niman ay ku jiraan noo yimi Asiana iyo qaar Carab oo dhakhaatiir meeshaan u tagnay ilmo yar oo kansar ku dhacay 1 week ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala jirkiisa Ilaahay uu kaga bixiyay marka Ilaahay bay ku xidhan tahay daawooyinkana qofku uu qabo kansarka uu sheegay doctor waa kii dhiig waxa uu sheegay in dhiig laga bedelayo wax badan oo flambeyn ku socdaan aad buu u qaadanayaa geed la yiraahdo mushroom iyo spirulina waa loo dirayaa labada geed xaqiiqatan isla markiiba waxay soo dhisayaan inay kow dhiigi ka joojiyaan wixii socday waxaan laga safaynayo waa germski waxa dhiiga cusub loogu shubayo waxa way germski baa socda oo aan jirkii laga safayn karin iyadoo marka waxay sameynaysaa inay jirkii si toos ah ula falgasho oo ay istaajiso germski markay istaajisana waxay baabi'inaysaa germski socday way istaajisay kii kale la dagaalamaysaa marka dad Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku daweeyay baan aragnay